waxaa la gaadhay wakhtiga Afrika waana xilli aanu sugaynay inuu mar u yimaado. waxaa hadalkaa yidhi jilaaga caanka ah ee Idris Elba. waxa uu yidhi Afrika waa qaarad ka duwan kuwa kale, waxaa ku duugan khayraad iyo sheekooyin aan weli loo soo bandhigin dunida kale. Idris Elba waa jilaag ku dhashay magaalada caasimadda ah ee London. aabbiye waxa uu ka soo jeedaa Sierra Leone halka hooyadii ay tahay Ghanis. sanadadii u dambeeyey waxa uu go'aansaday inuu u bato aflaamta qaaradda madow, wuxuuna ka dhannasaday sheekooyin xiise leh iyo dhacdooyin aan weli loo soo bandhigin dunida. dhowaan ayuu shaaciyey inuu uba guurayo qaaradda isaga iyo xaaskiisa Soomaaliyadda ee Saabiriin Dhoore. marwadani mar ayay ku guulaysatay quruxda, waana model shirkadaha xayeysiiska ku xidhan. iyada iyo ninkeeda waxaa lagu majartaa inuu ka dhaxeeyo jacayl aad u daran. Idris Elba weli waa arday la daaladhacaya barashada afka Seydiyadii ee Soomaaliga. inkastoo barashada afka uu ku adkaaday, haddana waxa uu isku dayaa inuu ku dhawaaqo ereyada qaar ka mid ah. waa Afrikaan iminku la moodo inuu ku baraarugay qiimaha ay leedahay qaaraddu.